saxaafaddu waa saxaafaddii shalay markii bandhigyada iyo mudaharaadada aad samaynayseen ku garab socotay ee kaa duubaysa waxaanu ka baqaynaaba in muddaxileedka kuu hadhay in guud ahaan warbaahinta dalka ee madaxa bannaan siday u dhan tahayba inaad xidhaan bismi illaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sayidina mawlana maxamed waxaanu aada uga xunnahay aadna u cambaaraynaynaa aadna uga soo horjeednaa muddaxileedkii ama muddadii xukuumadda xisbiga wadani ay jirtay in warbaahinta somalilan gaar ahaan warbaahinta madaxa bannaan ay kala kulmeen tacaddi fara badan iyo xadhig fara badan iyo caburin fara badan waxaa nasiib darro ah xisbigii waddani ee xukuumadda maanta talada dalka haysa ay ka dhalatay xilligay mucaaradka ahayd inay u doodi jirtay u hadli jirtay iska dhigi jirtay inay tahay wehelka iyo saaxiibka saxaafadda xisbiga waddani wuxuu aada uga hadli jiray xilligay mucaaradka ahaayeen xuriyatul qowlka saxaafadda waxaynu ka warqabnaa maanta oo aanay sanad jirsanin xukuumadda xisbiga waddani in ay maanta dalka ku xidhan yihiin ama lagu xidhay saxafiyiintii ugu faraha badnaa abid waxaanu aragnaa nasiib darro weyn waxaanu aragnaa in xukuumaddu ay jebisay shuruucdii iyo xeerarkii dalka saxaafaddu waa tiir weyn oo ka mida dowladnimada somalilan saxaafaddu waxa weeyaan indhaha iyo dhegaha shacabka iyo bulshada somalilan saxaafaddu waa codbaahiyaha u hadla dadka aan hadli karin aad baan uga xunnahay haddaanu nahay xisbiga kaah in xukuumaddu ay dhaqan ka dhigatay ama ay joogtaysay inay caburiso oo ay xidho warbaahintii ama saxaafaddii madaxa bannaaneed xisbiga waddani shalay saxaafadda wuxuu lahaa saaxiib saxaafadda shalay tolo wuxuu ku matalayay inuu hiilu yahay saxaafadda shalay wuxuu ku matalayay inuu wehelu yahay laakiin waxaa muuqata in ujeedka ugu weyne ay lahaayeen inuu ahaa awr ku kacs iyo inay kursiga ku gaadhaan waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka madaxweyne saxaafaddu waa saxaafaddii shalay ku garab taagnayd saxaafaddu waa saxaafaddii shalay markii bandhigyada iyo mudaharaadada aad samaynayseen ku garab socotay ee kaa duubaysa saxaafaddu waa saxaafaddii shalay markaa eedeynayseen xukuumaddii markaa talada dalka haysay warkiina shacabka iyo bulshada gaadhsiinaysay in saxaafaddii maanta aada cadow u aragtaan inaad ugaadhsataan waxay muujinaysaa in hadafkiina iyo yoolkiinu ahaa inaad kursigun gaadhaan waxaanu cambaaraynaynaa saxafi cabdicasiis cawl oo ka howlgala tv-ga caf media oo badha saabka gobolka ramaaxu xidhay sifo aan sharci ahayna ku xidhay maxkamadda markii la geeyey kiis lagu waayey maxkamaddu ay xorriyaddiisi u soo celisay caddaysana inaanu saxafigaasi dembi lahayn isagoo muddo 21 cisho ah sifo sharci darraa ku xidhnaa in haddana isla guddoomiyihii isagoo awood sheeganaya gobolka togdheer inuu power abuse sameeyey inuu haddana isla mar labaad inankii saxafigaa xidhay waxay ku tusaysaa mas-uuliyad darro waxay ku tusaysaa dulqaad yaraanta waxay ku tusaysaa in mas-uuliyiintii madaxweynaha qaranku uu u igmaday xilalku inay ku takrifalayaan awooddii qaranka oo shacabkii iyo warbaahintii madaxa bannaaneed ba ay ku dulmayaan waxaan coddeer ku cambaaraynaya oo hargeysa maanta isna lagu xidhay saxafiga cabdiraxmaan jumbo marnaba suurtagal noqon mayso in xukuumaddu ay saxaafadda afka qabato marnaba suurtagal noqon mayso
in xukuumaddu ay indhaha iyo dhagaha qabato warbaahinta madaxa bannaan. waxaanu garab taagannahay, waxaanu la jirnaa, waxaanu cod dheer ku sheegaynaa in saxafiyiinta xidhan sida ugu dhaqsaha badan xorriyaddooda loogu soo celiyo. saxaafaddu waa tiirka afraad ee dowladnimo, waa sifooyinka iyo astaamaha tilmaama dal dimuqraadi ah. waxay muuqaal xun u yeelaysaa oo ay fool xumaynaysaa warbaahinta madaxa bannaan iyo saxafiyiinta xukuumaddu ay ugaadhsanaysa ee ay joogtada u xidhayso inay Somaliland ku noqonayso sumcad dil. waxay dhaawac ku tahay xorriyatul qowlka, waxay dhaawac ku tahay xuquuqul insaanka. waxaan leeyahay xukuumadda maanta talada dalka haysa, haddaanu nahay xisbiga ka, saxaafaddu waa saxaafaddii shalay tolo aad jeclaydeen, waa saxaafaddaa shalay saaxiibka la haydeen, waa saxaafaddaa shalay ammaanayseen, waa saxaafaddaa shalay casuumadaha u samaynayseen. waa nasiib darro in iyadoo aanu sanadidii dhammaan in maanta saxaafaddii ay cadow aad ka dhigataan ee cadowdii noqoto. cod dheer baanu ku cambaaraynaynaa saxafiyiintaa xidhan. waxaanu u soo jeedinaynaa xukuumadda inay sida ugu dhaqsaha badan xorriyaddooda ugu soo celiso saxafiyiinta muwaadiniinta ah ee sifada aan sharciga ahayn loo xidhay. waxaanu qabnaa inay dulmi ku xidhan yihiin, waxaanu qabnaa in kibir lagu xidhay, waxaanu qabnaa in aan loo marin dariiqii ama sifihii saxafiga lagu eedayn jiray ama lagu xidhi jiray. saxafi aan kiis lagu hayn, waaran loo soo jarin, xeer ilaalin la soo marin, in aayar inta nin wasiire ama mas-uuli intuu la hadlo ciidanka inuu yidhaahdo hebel soo qabto soo xidha, waxay muujinaysaa inay muuqaal xun u yeelayso hannaankeenii dowladnimo iyo xorriyatul qowlkii. qodobada dastuurka iyo xeerarka ka dheegma ayaa damaanad qaadaya xorriyadda saxaafadda. dastuurkaa damaanad qaadaya in saxafigu uu soo tabiyo hadba wixii uu dan u arkay inuu bulshadiisu la wadaago. waxaanu leenahay xukuumadda ama madaxweynaha qarankaba, madaxweyne waxaanu ka baqaynaaba in muddaxileedka kuu hadhay in guud ahaan warbaahinta dalka ee madaxa bannaan siday u dhan tahayba inaad xidhaan. waxay muujinaysaa dulqaad yaraan, waxay muujinaysaa khibrad yaraan, waxay muujinaysaa adkaysi la'aan, waxay muujinaysaa mas-uuliyad darro, waxay muujinaysaa faham darro dowladeed in xukuumaddu ay xamili kari weydo wararka ama xogaha xaqiiqada ah ee warbaahinta ama saxafiyiintu ay la wadaagayaan bulshada. intaasaan ku soo gabagabaynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.